markab wada xishnad ganacsi ayaa galabta ku soo caariyay xeebaha dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Markabkani oo magaciisu yahay MSC Bostona ayaa la doonayay inuu ku soo xirto dekedda magaalada Muqdisho waxa uuna la fadhiistay cillad ka soo gaadhay dhinaca matoorka. Saraakiisha dekedda magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay aad u yar tahay rajada laga qabo in la badbaadiyo markabkani oo qaybo ka mid ah haddaba degay, waxaana la sheegayaa in maamulka dekeddu uu hadda ku dadaalayo badbaadinta hantida saaran. Markabka ayaa imika sabaynaya xeebta meel u dhow isbitaal Martini ee xabsiga Muqdisho, waxaana badda oo biyo yaraatay awgeed suuragali la in loo soo jiido dhanka dekedda. Saraakiisha dowladda ayaa sidoo kale sheegay in markabkani ay isu kaashadeen dabaylo iyo cillad matoorka uga timid, ayna tilmaameen inay hadda quus ka taagan yihiin badbaadintiisa maadaama aysan dowladdu haysanin qalab lagu badbaadiyo maraakiibta. Maamulka dekedda gaar ahaan shirkadda Albayrak ayaa lagu dhaliilay inaysan weli keenin biraha waaweyn ee ay ku xirtaan maraakiibta, iyagoo ku mashquulsan dhismaha caadiga ah. Dekedda Muqdisho ayaan weli helin dayactir ballaadhan, waxa ayna taasi soo dedejisay in maraakiibta qaar aysan soo gaadhin goobaha lagu xirto halka qaarna ay doomo ku soo raraan alaabaha ay wadaan goortii ay soo gaadhaan meel ku dhow dekedda. Dhanka kalena waxaa sidoo kale xeebaha Soomaaliya ku ciladoobay maraakiib dhowr ah oo waayay agabkii ay ku xiran lahaayeen ama lagu badbaadin lahaa. Subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada ah.